Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada janalka. Maanta waxaan ka hadlaynaa logical fallacies oo lagu fasiri karo qaladaadka caqliga. Waxaan soo qaadan doonaa 5 ka mid ah qaladaadka caqliga kuwooda ugu caansan. Tusaalayaal waan ka bixin doonaa insha Allah. Intaanan horey u gudbin, waa maxay logical fallacy? Waa qaladaad caqli ah ama sababeyn qaldan oo haddii ay doodaada galaan wax u dhimi kara ama gebi ahaanba burburin kara. Number 1, ad hominem fallacy. Waa logical fallacy-ga ugu caansan. Waa qasab inaad la kulantay amaad adiga laftaadaba ku dhacday. Ad hominem fallacy waa inaad qof ka weerarto meeshii aad ka weerari lahayd doodiisa ama argumentigiisa. Tusaale: Cali, dadka waaweyn waxay leeyihiin 206 lafood, ilmahana waxay leeyihiin ku dhowaad 300 lafood. Guuleed, 3 mar ma ku dhicin oo maadada biology-ga. Number 2, false dichotomy ama false dilemma ama black and white fallacy. Waa marka aad options ka jiro laba kusoo koobto ayadoo ay jiraan wax ka badan labo. Tusaale: waa laba midood inaad taageerto xisbiga talada hayo ama inaad neceb tahay waddanka. Ma taageertid xisbiga talada hayo, sidaa daradeed waxaad neceb tahay waddanka. Waxaad ku dhacday false dilemma ama black and white fallacy sababtoo ah waxaa jiri karo qof aan taageerin xisbiga talada hayo laakiin waddanka jecel. Number 3, strawman fallacy. Waa markaad ka leexato argumentiga qofka oo aad burburiso mid kale oo aad adiga jeebkaada kala timid. Tusaale: Maxamed, haweenka waxaa u fiican markay weynaadaan inay ilmo leeyihiin oo ay noqdaan hooyo ilmo dhashay. Cali, haddana waxaadna leedahay gabdhaha ayaan wax la barin oo guriga bisa ka shaqeeyaan. Number 4, two quo fallacy ama U2 fallacy. Waa markaad isku daydo inaad qof argumentigiisa burburiso adigoo muujinaya kala duwanaanta ka dhaxaysa xaaladiisa iyo doodiisa. Waa sidaan oo kale: Jaamac, cabista sigaarka ma fiicno maxaa yeelay waxay keentaa cudurro halis ah sida kansarka. Faarax, adiga waad cabi jirtay sigaarka. Number 5, slippery slope fallacy. Waa markaad ka dhigto wax ay fog tahay dhicidooda wax isku xiran oo israacraacayo. Tusaale ahaan, haddii aad homework ka shaqayn weyso fasalkaad ku dhacaysaa. Haddii aad fasalkan ku dhacdana ma qalin jabinaysid. Haddii aad qalin jabin weysana jaamacad ma gelaysid. Haddii aad jaamacad geli weysana shaqo fiican ma helaysid. Haddii aad shaqo fiican heli weysana faqiir iyo darbi jiif ayaad noqonaysaa. Sidaa daradeed ka shaqee homework, haddii kale darbi jiif ayaad noqonaysaa. Sheeg magaca fallacy-ga lagu dhacay doodahan soo socda. 1. Muuqaalkan haddaa kusoo dhufatay waa 2 midood inaad dabaal tahay ama inay gacanta kaaga dhacday. Gacanta ma kaaga dhacday mise dabaal tahay. 2. Moos ha cunin maxaa yeelay moos haddaa cunto qofka dhulka dhigee. Qofka dhulka haddaa dhigto qofaa ku joogsanayo. Qof hadduu ku joogsado wuu la taraaraxaa. Hadduu la taraaraxana lugtuu ku jabaa. 3. Jaamac, in la aalamiiteeyo oo jirdhis la sameeyo oo wax fiican. Faarax, adigaba jirkaada ma dhisno mana aalamiitaysid. 4. Cali, dadka waaweyn waxay leeyihiin 206 lafood, ilmahana waxay leeyihiin ku dhowaad 300 lafood. Guuleed, 3 mar ma ku dhicin oo maadada biology-ga. 5. Caasho, waxbarashada dibadda ayaa ka tayo badan waxbarashada gudaha. Axmed, ma yeelayno inaan joojino waxbarashada waddanka gudihiisa. Waxaad rabtaa in waddanka aan waxba lagu baran oo la iska fadhiyo. Noogu soo gudbi qaybta commentiga su'aalahan jawaabahooda. Mahadsanid.